maxadka raasuqiin ee degmada garadiga galbeedka gobolka sanaag oo ka mid ah macaahidda shamsun culuum ayaa xaflad abaalmarina iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey u qabtay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii sanna dugsiyeedkan ardaydan dhiirigelinta loo sameeyey ee loo qabtay shahaadooyinka sidoo kalena abaalmarinta kala duwan la guddoonsiiyey ayaa iyagu kaalmo sare oo fiican ka galay maxadka raasuquun xafladdan shahaadooyinka iyo abaalmarinta lagu guddoonsiinayey ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dowladda hoose degmada garadag waayeel waxgarad cuqaal culimaaudiin iyo waalidiintii dhalay ardayda kaalmaha sare ka gashay maxadka raasuquun uliyiintii halkaa iskugu yimi oo aada ugu mahad celiyey macallimiintan muddada yar ee kooban ka soo ifbaxday ardaydan dhammaysatay culumta kala duwan ee kitaabka alle marxaladihii kala duwanaa ee maxadku soo maray waxaa faahfaahin ka bixiyey maamulaha maxadka sheekh yuusuf cabdilaahi warsame oo ah isagoo maamulaha maxadka iyo qaar ka mid a macallimiinta ka howlgala maxadkan muddadii yarayda uu furnaa maxadkan raasuquun waxaa iftiin badan iyo culum kala duwan oo lagu soo hirto ka soo dhalaaliyey macallimiinta ka howlgala maxadka raasuquun iyaguna maamulka degmada garadag ayaa aada ugu mahad celiyey macallimiinta ka howlgala maxadka raasuquun waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan bishii 8aad 20keedii baa la furay maxadkani dee wuxuu la mid yahay macaahid ka furan Soomaaliya dhammaanteedba oo markaa uu la manhajna yahay qawaaniinta ay ku socdaan uun ku socdaa qofka ardayga ah marka hore la qorayaa waa inuu yahay qof quraankii xambaaray oo markaa dhameeyay oo garanaya cilmiga markaa quraankii markaa kadib baa qofka loo bilaabayaa cilmiga asaasiga ah ee markaa sharciga dhammaan funuuntiisii kala duwaneedna waa loo dhigayaa hadday markaa luqa tahay hadday siira tahay hadday xadiis tahay tafsiir caqiido dhammaan inta uu ka kooban yahay ee fanni ay cilmigu leeyahay dhammaan 4 sano ayaa lagu talagalay qofku in walba inuu ka haysto ilmaam iyo markaa tilmaam inuu ka haysto haddaba sidaa daraadeed maxadku haddeer wuxuu marayaa sanadkiisii labaad ayay qoladii koobaad ee lagu bilaabay dhamaysay waxayna gelaysaa sanadkii saddexaad bay gelayaan qoladii uu leeyahay sanadkii dhoweed la qorayna iyaguna sanadkii koobaad bay dhamaysteen iyo culumtii lagu dhiganayay waxayna u gudbi doonaan sanadkii labaad markaa waxa jira galaas saddexaad oo isaguna loo sii tababaraya sanadka dambe inuu ku biiro maxadka oo ka mid noqdo oo isaguna insha Allah ta'ala muddo 4 bilood haddeer maxadka ku jiray imtixaanna laga qaaday wixii ka soo gudbay imtixaankaasina ay ka mid noqon doonaan ardayda marka dambe waxa weeye sanadka dambe la diiwaan gelin doonaa maxadka ka mid noqon doona insha Allah biidnillaahi alkariim in badan degmadeenan garadag waxa lagu xamantiray inay yihiin dad maadiga ku horeeya ama kaalmaha hore mar walba gala de waxay ahayd arrin waxa weeye tilmaaman oo wanaagsan dadku wixii wax barasho ah ay ku dadaalayeen inay meel ka keenaan maantana insha Allah waxa loo baahan yahay sidaynu maadigaaba ay degmadu ugu tilmaamnayd iyo hareeraheeduba inay cilmiga fadliga iyo khayrka leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sharfay qiimihiisa uu noo sheegay inaynu isagana ku tilmaamnaano insha Allah biidnillaahi alkariim maxadkan khayr baynu isugu nimi arrin wanaagsan oo wax la isugu yimaado waxyaabaha ugu khayr badana in diin la abaabulo oo la isku dardargeliyo oo xaflado loo qabto waa arrin aad u wanaagsan xaflado badan baa dhacaya shirar badan baa dhacaya waxyaabo badan baa caalamka ka dhacaya laakiin waxa dhacaya waxa ugu khayr badan leh waa wixii diin ku saabsan ee diin lagu abaabulayo marka hore anigoo halkan ka faa'iideysanaya waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo badal mahadda Ilaahay kadib dadka mutawiciinta ee ka qayb qaatay maxadkan dhismihiisa iyo waxtarkiisa iyo wadidiisa iyo gacan ku hayntiisa oo ay haddeer ugu horeeyaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa ninka la yiraahdo Siciid Axmed Jaamac Ilaahay khayr badan ha siiyo oo dadaalka ugu badan maxadka geliyay iyo abaabulkiisa ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa Siciid Axmed Jaamac oo nala jooga maanta oo dhismihiisa ka qayb qaatay ahaana qofkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay inuu lacag tabarruco bil walba bixinayo ee isku qora si dadku ugu daydaan isagana waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro
adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba kulligood allah ku wanaajiyo culimada kale gacanta ku haysa ibn sheekh ibraahim ka mid yahay iyo ragga kale ee wax ku darsaday rag iyo dumarba dadka wax ku darsaday waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo xasanaad badan ha siiyo gaaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa waxa uu ku inama yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada uun dadka culimada ee wax garanaya alcaalimiina alcaarifiina billahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala yarfacu lahu aladiina aamanuu waladiina uutuu lcilma darajaat iyowa cilmiga la aqoonta leh kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga yaqaana ilaahay darajaad ayaa uu siinaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la yimaado maxsharka la yimaado jannooyinka la degayo ubadka tacliinta leh waa u shafeeco qaadaya ama waxaba la odhanayaa ilmahaagiibaa waxaan soo shaqeeyey ama waxa la odhanayaa ubadkii baa la odhanayaa waalidkaa u yeedho markaasaa lasoo raacinaya ubadkiisi baa lasoo raacinaya wax soo dhigayey iyo qaarna soo baranayeen inaynu maanta maxay ahayd u soo xidhno sanad dugsiyeedkeedii maxadka horaa looga warbixiyey oo maamulihiiba ka warbixiyey wuxuu ka tirsan yahay maxadku mu'asasadaas weyn ee shamsul culuum manhaj ahaan ayuu maxay tahay ka tirsan yahay mu'asasada shamsul culuum dadka waxay kula dadaashaa inay jamciyaan cilmiga iyo camalka oo waxa weeye maxay ahayd cilmigii dadku markay bartaan waxa weeye maxay ahayd misana ay nashrigiisii ka qayb qaataan oo dadkay gaadhsiiyaan oo tuulooyinka gaadhsiiyaan oo magaalooyinka gaadhsiiyaan in badan degmadeennu waxay niyeysnayn ama aynu maxay ahayd hadal haynay inaynu hello maxad sharciya oo waxa weeye maxay ahayd sida maadigeennu in badan u hana qaaday inay shareecada iyo diintuna ay hana qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inoo hirgeliyey dadaallo fara badan kadib iyo dad fikir iyo juhdi iyo dadaal badan ku bixiyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu hirgeliyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baan ku mahadnaqaynaa maanta waan aragnaa da'yartii yaryarayd oo dee axkaamtii sharciga fiqiga iyo maxay tahay intuu ka koobnaa afartiisii rubucba oo lacagtii ay dhowr iyo 90,000 oo dollar noqotay waxaa jirtay in la yidhi lacagtaas waa badan tahay waxaa jirtay in la helay dhismihii oo mutadawiciin fara badan ay ka qayb qaadatay alxamdulilah farxaddeedii ugu weynay maalintii lowrka dhagaxa ugu horreeyay aanu dhigaynay ayay ahayd maanta farxaddeennii labaadna waxa weeye maanta aynu ardaydu tahay fasalkii saddexaad u gudbayso oo midhaha iyo nuurkaasu ay yihiin waxa weeye waa alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa ilaahay baa mahadle mahadda labaad dadweynihii tabarucaadka waqafkaa ku dhisay macadka kan waxaynu leenahay waalidiintiinni iyo waxa u baxsateenba miisaanka xasanaadka allah idiin siiyo ay u gudbayaan tadawarkii ay wadeen iyo waxa la yidhahdaa marka laga hadlayo diplomanka ama horumarka waxa weeyaan waa gradual balay waa step by step marka waxaan leeyahay cilmigu ma aha wax dhammaanaya ardaydana waxaan leeyahay halkaa ka sii wada dadaala waqtiga oo kulula weli waxaan leeyahay halkaa ka sii dadaala horumarka sameeya dadaala aasa jaamacadda ibraahim bare ahaana waxaanu idin garab taaganahay wax allaale wixii horumara hadday noqoto dhinaca teknolojiyadda hadday noqoto dhinaca sayniska wax kasta waynu idinku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ardayda haddeer waxa la marayaa casrigii teknolojiyadda hadday noqoto waxaan artificial intelligence-ga laga hadlayo iyo horumarkan ay teknolojiyaddu wado ardaydu hadday baxsi samaynayso hadday doonayso inay caalamku siduu socdo ay wax badan ardaydu ka dirsaan jaamacadda ibraahim bare ahaan waanu la garab taagannahay horta maxadkan aad iyo aad buu waxa weeyaan wax weyn uga taray magaalada oo faa'iidaha ku soo kordhiyey maxadda hore waa la isku dayey oo laga furay magaalada laakiin muu soconin maxadkan insha allahu biidnillahi kariim waxaan rajeynaynaa inuu socdo anigu macallin baan ahay waxa weeye dee iskuullada waxa weeyaan nidaamka ama dowliga wax ka dhiga maadiga dhiga inkastoo dee macallin tarbiyad ahay haddana dee iskuulku wuxuu ku suntan yahay iskuul waxa weeye maado weeyaan aad waxaan ugu maqsuuday ardayda halkan waxa weeye su'aalaha ka jawaabaysay ee isweydiinaysay maalin dhaweyd waxaan wacaynaynaa hirgelinta maxadkan islaamiga ah
inooga dhisan degmada waxaan leeyahay cid kasta oo juhdigaa gelisay iyo xubnaha magacaabanba in ilaahay caqliga iyo cimriga iyo adduunkaba ugu barakeeyo ayaan ilaahay uga wada baryaynaa ee noo soo saaray maanta jiilkaa quruxda badan leh laba seef leh laba af leh waxa laga yaabaa arday 12 habeenimo ka wada inuu ku gaadho model uu ka daawanayo waxaan anfacayn laakiin haddii uu anfaco dhinaca wanaagsan ama positive-ka wax badan oo aan macallinku siin karin ayuu helaya sida saxdaana macallinku 30% ayuu siiyaa kolley aan u malaynayo inay standard tahay 70 kale ardayga laga rabaa macallinkana laguma canaanan karo waalidkuna canaan kuma leh ardayga canaanta ku yeelanaya hadduu 70 ka keeni waayo ama wixii la baray ha akhriyo ama tiknoolajiyadda aan u mahadnaqay jaamacadda Ibrahim Bari University uu ku ballanqaaday macallin Cabdiraxmaan ha raadiyeen marka aqoontu waxay u baahan tahay dadaalkaas ardayay waana idinka mahadnaqayaa Abrshiid bal leeyahay sida u dadaasheen iyo wixii culumtii halkan ka akhrideen sidaan ugu faraxsanayn ka waalidna waan hayay ilaahun baa garan karayay ragayga waaweyn ee qudhayda magaalada degan laftooduna inay ka faa'iidaystaan meesha uu ku jirtaayo barashada diinta anagu quraanku maanu baran laakiin waa u baahannahay inaan qudhayda wax baranno oo aqoonta diiniga kordhino qofku si walba culumaad uu barto haddaanu diintiisa waxba ka garanayn oo aanu mas'ale kaliya ka jawaabi karayn waa waxba yahay marka waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta iyo dadka deegaankaba in laga faa'iidaysto maxadkaasi waa fursad dahabiya oo inoo hirgashay qodobka saddexaad ayaa u soo baxay hawey qofka ardayga ah baa wadaadka wax dhigta diinta dhigta iyo qofka dhigta maadiga ayaa iskuba waji maaha marka hore ragayadu iskuba bayanka inta wadaadka waa mar walba qofka wax qurux badan qof wadaadoo wax loo bariyo alkimays qof wadaadoo dad wax loo ururiyo alkimays qof wadaadoo wax bariyo alkimays qof wadaadoo meel la geli la alkimays kuyaan masarka sidee leeyahay yaa meel la gey war anigu waaba wixii aan ku baray yaa walaa wixii aan ku baray ku shaqata anigu cid ku bari maayaan hadalkaa waa faahfaahinta inayo waan dhalayoo baxaa waa quraax dhigtaa haye walba haddaan aan soo garaacin masaxto oo muxuaha diintaa barata haddaanay soo garaacin ma masaxto kiyaa waxaa bara kuyaa barana goori ugu dambaysa waa yaqaan yaa biniaadan lagu qiimeeyaa khaasatan qaryad kasta iyo kasta oo meel deganoo muslina halka laga qiimeeya waxa weeye masaajidadooda madaariistooda xulimadooda iyo diintooda siday ugu dhegan yihiin ayaa lagu gartaa inay luusan yihiin iyo inay toosan yihiin waxa muuqataa dee garadag maadi iyo diinba inay kor u socoto dugsiyadii hoosaa jira dugsigii saraa jira jaamacaddii baa jirta farsamadii gacanta oo technical institutekii baa idin dhammaystiran oo iminka diyaara maxadkii baa jira waxa idinka maqan oo aan tibayo anu waxaan garanayaa jaamacaddii diiniga ahaydoo ayaa ka dhiman wax alla wax kaloo ka dhiman iyadana insha allah waa lagu hamiyayaa waana iman doonta qodobka saddexaad waan u arko inay tahay halkay u dhimatayna waxa weeye maxadku u dhaqaaqay meel fiican buuna marayaa inaynu isbarbar taagno oo aynu arrinteenna muxuu ahaayey isbarbartaag aad iyo aad arkani wuxuu daaran yahay in wixii la gaadhay raggu ay juhdigii la geliyey halku mirihiisiina la muujiyo isla markaana dadka lagu wacyigeliyo oo lagu baraarujiyo oo ay ogaadaan in loo baahan yahay hawshiina sii socdo hawshiina sii socotana waxay u baahan tahay dhaqaale waxaan u malanayaa kolley kelmad iyada ku saabsan maamulka arrinkaas sidaan uga qayb qaadanayno iyadoo la sheegay inaan hore uga qayb qaadanay waxaan u dhaafayaa maayarka waxaan sii raacinayaa aniguna si gaara shakhsiyan ayaan uga qayb qaadan doonaa waxyaabaha joogtada ah hadda ilaahay kadib iyo taan dadweynaha u soo jeediyey maxadkan maanta ardadaysa aynu ku maamuusayno saad bay ka wada warqabtaan ama hore loo iftiimiyey
rag isu tegey oo macallimiin ah oo dhallinyaro ah ayuunbaa fikirkeedii uu ku dhashay. markii uu ku dhashayna fikirkii waa la hirgeliyey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa raggii fikirka keenay oo in kooban markii hore ahaa, markii dambena daafaha dunida iyo degmadeennaba ku faafay. oo kulley baan ka xusayo dhallinyarada ugu muhiimsan sheekh cabdullaahi yuusuf cabdullaahi warsame iyo rag la socda. raggii u kaalmeeya tirada isla berber taagay oo sheekh siciid aadan ka mid yahay, sheekh siciid axmed jaamac, dad kale oo badan oo qurbashoog iyo qolqolshoogba leh, sheekh ibraahim axmed jiyaar. inahaas markay isu tagtageen waxay hindiseen oo arrinkii raggu dee ku faqay fagaaruhu yimaadaayo ay noqotay in shirkii iyo xaaladihii la galay ay midho dhalaan. midho dhalkeediina aynu maanta maragu wada nahay oo laynooma soo fadhiisin oo lama odhan ardadii waa taasi halkan baa la keenay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fanniyadii kala duwanaa ee axkaamta ahaa, ee tajwiidka iyo axkaamta qur-aanka lahaa, ee salaada iyo xajka iyo dahaarada lahaa, ee noocyada kala duwan lahaa ay halkan keeneen. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. bilbayt alcatiiq qofka markii weysuu ka jabto waxa ka xaaraana salaad ba ka xaaraana, faral iyo sunnada waxa ka xaaraana, inuu qur-aanka kariimka taabto waxa ka xaaraana, inuu xajka dawaafo. ما هي الصلاة شرعا؟ صلاة محيطها شرعها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. صلاة شرعا واحد هاي أراه يفلل لغفر فرت التكبير لغنا ختمه سلام النقص سيدا غالب. ما الأيام التي يحرم صومها وما هي أيامها حاراتها صوم الصوم؟ اليوم الأول من عيد الفطر ويوم الأول من عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ويوم شك. وعلما الصوم بحارانته يهوي ما نتو كبادي عيد الفطر وما نتو كبادي عيد الأضحى يصدق عشر لا يغني بورة عيد كقدم بيا يوم انت يوم شك. ما ميقات الحج السماء حيث هاي بلاها ما وقتها الحجة؟ هو الشهر الشوال شهر ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وقت حجك وحوية بش الشوال يبش ذو القعدة يو طبعا كأول الرأي بش ذي الحجة. ما هو الرام الشرع؟ رام الشرعان عيتاد. هو جعل عين مالية وثيقة بدين استوفى منها عند تعذر وفائه. رهن شرعان هويا مقراسة شيء لا يولو مقراسة مال لا يولو شيء مال أهان مال لا يولو kalsoonida lagu yeelo shayga meesha la yeelay qofkii magaranaysa alaabtu ku qaatay rahan ahaan u soo dhigay hadduu hadhow keen waayo kan rahanta loo dhigay hadhow wixii loo dhigay buu qaadanay. man yaakhudhu bisumun xaka dhacalka iyo sumun wax ku qaata. yaakhudhu bisumuni asawjatu aw asawjati idaa kaana farcun waarithan. sumun waxa wax ku qaata xaas ama xaasas fara badan markuu joogo waarith dhaxlaya. متى تحرم المرأة لا ينعقد النكاح قبل حلم أي حالاتها إلا بسنقول كذا أنا بناي. لا ينعقد النكاح المحرمة بحج أو بعمرة والمعتدة في عدتها والمحرمة بطلاق. وحي حالاتها قبل إلا قرصدا قبل حرمتي حج أما عمر الله وقيد انتهى النغطة يا قبل مقالة ساي عدة سنة سيدنا iyo gabadhii ku xaaraantinimooday lacaanta. man runtii aan aad iyo aad uga mahad celinaya waxa weeye wax qabadka cid waliba ha qabato ama cid kasta ha ka qayb qaadato. maalintii aanu gugidaa dhagax dhignay iyo maanta runtii dee horumarka muuqda runtii juhdiga leh aan weliba aanu wax ka taataabanayo oo ahaa qorshihiisu maalintii aanu dhagax dhignay aanu halkaa dhagax dhignay ay meeshu bannaanay sidii degdega ahayd ee looga qayb qaatay qaadhaanka. waxaan aad iyo aad iyo aad ugu ducaynaya oo aan leenahay waynay ognahay dadkii qaadhaankaa sida degdega u soo ururiyey. si degdega ayaa loo soo ururiyey iyadoo cid walba la leeyahay cid yaa ka qayb qaadato ayaa la yidhi waa lahayaa lacagtiya. runtii waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in diinta
dadku sidaa uu xiisaynayo oo uu doonayo waxqabadkeeda waana halka aanu ka ogaanay inay waxqabadka degmada kow laga bilaabo xagga diinta halkaasaynu ka yaba furayna halkaasaynu ka gelayna qaadhaanka koowaadna halkaasaa laga bilaabaya marka waxa weeye aad baan ugu mahad celinaya ciddii fikirka lahayd oo ay ugu horreeyaan culimmada halkan inala joogta ayaa fikirka lahayd annagana noolata runtii aad baan ugu mahad celinaya dhammaantoodna halkan ku sugan yihin waana runtii waa dhaax wanaagsan oo la maali doono waana wax asada runtii oo shaqayn doono in doora aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana iba fur wanaagsan annaguna waanu inagula shaqaynaynaa annaguna waxaanu inii ballan qaadaynaa runtii wixii aad nooga baahataan ka maamul ahaan waanu inii ballan qaadaynaa oo annagoo culimmada aan ka fogeyn waanu inagula shaqaynaynaa waxa lalaala waxaad noo soo jeedsaana bulshada maanta horteeda aanu ka ballan qaadayna inaanu inala fududayn doono insha allah haddii ilahay nafteena daayo waxaanu kaloo runtii halkan aan iyagana kaga faa'idaysanaya waxa weeye ardayda in juhdiga la geliyey ee midhodhal kale runtii iyaguna ay halkaa kasii ambaqaadaan waalidiinta iyaguna ka soo qayb galay ee ardaydan wada oo u badan dumar iyagana aad baan ugu mahad celinaya runtii waxaan leeyahay juhdigaas iyo runtii dee haddeeroo laynaga doonayo fasal cusubna laynaga doonayo iyadana aynu insha allah haddii ilahay naftu inoo daayo maxadkaa ka warhayntiisa iyo hawshiisa aynu ka wada warhayno jaanis maanka kaga yar faa'idaysanayaayo kolley dee bulsho intan la-eg jaanisyada sida loo helaa waa adagta cidda wax loo qabanaya amaan maamul u nahayna waxa weeye waa reer garadagu marka waxa weeye qorshe haddeer aanu bilaabayno qoladeeda dowladda hoose oo isagana aanu bilaabayno ayaa jira oo ah dhirayntii magaalada horumarkeedu aad buu wanaagsan yahay wuu socdaa ilaa heer jaamacadeed maanta dugsiga farsamada gacanta ayaa isaguna inoo dhammaaday oo runtii furkiisiibaa isna inoo bilaabmaya laakiin waxyaabaha uga baahan magaaladii quruxda iyo biliceedii runtii ka dhiman waxa weeye dhiraynta gaarigii boolida waanu keen runtii aan iyaga cid biyo laga doonaya ma jirto laakiin waxaanu bulshada marti ugana amarna farayna in guri kasta oo ku yaalla magaalada iyadoo weliba laga bilaabayo streetka marka hore laga bilaabayo inaanu ka taagayno geed biyeyna inaad nagu garab gashaan oo qodobka koowaad qodobka labaad aanu bilaabaynaa waxa weeye magaalada waxa yaalla dhagax qof waliba boloorkii iyo nuskii uu lahaa iyo hadduu doono dhagaxii uu ku dhisanayay guriga intii soo hadhay wuxuu kaga tegay waddooyinka annagu waddooyinka magaalada waa bannaynayna waxaanu jecella qof walowba inaad dhagaxaaga u duwato ama gurigaaga u duwato oo daaraddiisa dhigato haddii aad jaga leedahayna jagadeeda dhexdeeda waa inuu kuu yaalla hadduu jagada saa qarka uga dhaafo dhagaxa waanu qaadanaynaa insha allah ee noo haniyey aad baad mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad baan igu mahad celinayaa waxa weeye dhagaxaan aynu ka wada shaqayno iyo horumarka magaalada dhammaantiinna aad baad mahadsantihiin xalfadaana runtii xalfad ka qurux badan laga soo qayb galaa oo ka wanaagsan ma jirto culummada gacanta ku haysa maxadka gacanta maxadka ku haysa runtii baan aad iyo aad ugu sii mahad celinaya